caalimka weyn ee Sheekh Maxamuud oo Cabdulle Cariif ayaa boqolaal Soomaaliya kula hadlay magaalada Kampala ee caasimadda dalkan Uganda. Sheekh Cariif maxaadaradiisa wuxuu ugu magac daray iscaafinta iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed wuxuuna hoosta ka xariiqay inaanu ka daali doonin isu soo celinta qulubta ummadda Soomaaliyeed. waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alkhayri wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. marka hadda in aynu iska reebno waxa xun oo waxa wanaagsan aynu isfarno waa arrin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nafaray oo nasaaran oo mar walba inaynu gudana la doonayo oo macruufka dadka faraya murka kale ka reebaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagana liibaan ayuu u sheegay. Sheekh Cariif oo si weyn looga yaqaan geyiga Soomaaliyeed wuxuu tibaaxay inuu socdaal dheer ku mari doono dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, South Africa iyo wadamo kale. Sheekh Cariif oo ka soo jeeda dariiqada Ahlul Sunnah wal Jamiica wuxuu caan ku yahay tasfiirka Quraanka Kariimka iyo gargaarka danyarta Soomaaliyeed. Ugu fasira fadligana waa islaamka leeyri raxmaduna waa nabiga kaleey salaatu wasalaam. maxaa yeelay waxa uu ogaanay wama arsalnaaka illaa rahmatan lil caalamiin u dhahay ayada saacadays marna waxa uu dhahay ana raxmad oo Ilaahay soo hadiyayana hadana Ilaahay wuxuuna leeyahay asagoo nala wada hadlaaya qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi hada ku fiisha adinku kutubta fiisha nabiga lagu fasiray raxmadda waana leeysu cagsiyay xataa hada islaamki laftirkiisu nabiga uu ku yimiday wixii oo dhan nabiga isugu tagaya fabidalika fadligaas falyafrahu ummadda ku farxana leeyahay Igla Saalax Ali Kalsan TV Kampala.